بسم الله الرحمن الرحيم. أولا waxaan maanta doonayaa inaan ka warbixiyo Dr. Farxaan kulamadayadii na dhex maraya dhakhtarnimo daweyntii iyo natiijadii waxaa jira qofka bini'aadmiga marka uu garanayo xanuunka haya xalkiisa wuu raadsan karaa laakiin marka aanu garanayn xanuunka haya wuu ku dhib badan yahay xalku wuu ku dhib badan yahay maalmihii aanu imi Farxaan iyo xaruntiisa soo dhaweynta oo la diiwaan geliyey kadibna waxaanu kulanay dhakhtarka xanuunkay hayeyna waxaan anigu markaa ka cabanayay xanuuno kale iyo meelo kale xubno kale oo jirka ka mid ah inaan iska eego iska jeegareeyo markii aan baadhitaanka galayna waxaa soo baxday yacnaa meeshii xanuunisiba meelaan ahayn buu dhakhtarku helay xanuunkaa wuxuu hayay ilaa 20 sannadood qiyaastii 20 years more than waxaanan u haystay aniga xanuunkan in uu xanuun yar oo xagga sanbabada ama wadnaha meelahaasa xanuunkii dhakhtarka baaritaanka uu ku helayna waxay noqotay xanuun qanjirkan prostate-ka la yidhaahdaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xanuunkaa ma isku ogtay miyuu yidhi markuu baaritaanka sameeyey maya baan ku yidhi wuxuu yidhi sheekh waxaa ku haysta qanjirkaasaa buka jirka intiisa kale aada buu kuu fiican yahay waan rumaystay waayo anigaa dhakhtar ah weliba dhakhtar muddo soo shaqaynayay haddaan tahay waxa weeyaan dawadii baan qaatay dawadii markaan qaatay tobankii casho u horreysay markaan qaatay durba waxay igu soo bilaabmay nefis ama relief ama sooreyn aan ka soo reynayo day after day markaasaan xaqiiqsaday waxaanan leeyahay Farxaan cilmiga allah ku barakeeyo ilaahay idankiisa waadna anfacday dadkii iyo dalkaba waad anfacday wax weyn oo muddo waad ka beddeshay insha allahu waanu ku barbar taagnaanaynaa wixii dambe aan imika u baahanaa waxa weeye dhakhtarka iyagii baa tahay waxaanan kuu rajaynayaa in ilaahay noo fududeeyo oo annagana caafimaad naga kaasiiyo adigana ilaahay wax wanaagsan oo aqoon iyo iimaanba la ilaahay ku gursado insha allah biidnillahi alkariim